الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه waxaynu xoogaa ka odhan doonaa badbaadada ummadda dabadda ku nool ama dadka wakhtigan dambe loo yaqaano qurba joogta ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee dabadda ku nool iyo sidii ama qaabkii ay u badbaadi lahayd ugu horreyn dhowr su'aalood baa habboon inaynu isweydiino oo dadka badh waxa laga yaabaa inay ku soo celcelinayaan hadal ah in la guuro ama la noqdo ama dhulkan galbeedka laga tago laakiin su'aashu waxa weeyaan ma dhacaysaa haddaan su'aasha jawaabteeda tijaabino marka aynu indhaynayno bulshadeenu siday u nooshahay ama tijaabooyinka ilaa hadda sameeyeen waxaynu u qaybin karnaa in dadku masalada tan saddex ra'yi oo kala gedisan ka leeyahay waxaan odhan karnaa qayb ka midi waxay u arkaan riyo inay tahay in la noqdo suurtagalna aanay ahayn kooxo kalena ra'yiga way ka gedisan yihiin laakiin su'aalaha jawaabahooda kooban haddii aan tilmaamo dadku guud ahaan waxay u arkayaan mustaqbal aan la garan karin waxa uu ku gabagaboobi doono inuu soo food saaray dadka dabadda jooga qayb ka midi markaa iyagu waxay in badan isugu warramaan inay noqdaan si haddii su'aal saxa la weydiiyo ah goorma ayaad rabtaa inaad noqoto ama markaad maxay hesho ayaad diyaar u tahay inaad noqoto dadka intiisa badani laba jawaabood bay bixiyaan oo ah marka aan helo deganaanshiyo waddankaasi leeyahay ama wadannada la degan yahay siiba ee baasaboorradooda marka la qaato iyo marka aan helo faraqabsi ama waxaan gacanta ku qabsado aan ku tegi karo waxase isweydiinta leh qofku haddii uu rababa inuu waddannadan ka guurow ka tago muxuu ku falayaa baasaboorka maxaa ku kalifaya inuu sugo intuu baasaboorka helayo jawaabta ugu badani waxay u dhacaysaa ra'yi odhanaya lugna dirir ugu joog lugna baqa ugu joog oo qofku waxaanu niyad sami ku qabin halka uu ku socdo waxa aanu garanaynin waxa ka soo horbixi doona sidaa daraaddeed dadyowgii tijaabiyey inay noqdaan waxa ay dhacdooyinka soo noqnoqonaya ina tusinayaan natiijadu inay noqotay warwareeg ama qofku inuu soo duuro oo soo warwareego oo waddamo badan soo dego maadaama aanu waddankiisii meel uu si rasmiya u degi karo inta badan aanu ahayn kadibna uu soo laabto kooxda labaad ee dadka ka midi hadday kooxdaasi ku qanacsantahay inay tagto kooxda labaad ee dadka ka midi iyagu waxaan odhan karaa waa daa'ifatu tamani ama waa koox yididiile iyo rajo ku nool aanay waxba u samaynin waa koox xagga maskaxda ka guursan oo la mida kuwa hore ama si kale haddaan u tilmaamo waa koox ku qanacsan meesha tan ay hadda joogaan nolosheedu inaanay u cuntamin dareensan qurba joognimada iyo dhibta ka dhalata aanu arkaynin inay wax badan ka faa'iidi karayaan dabad jooggaasi ha noqoto midab sooca iyo hayb sooca iyo cunsuriyadda ay la kulmaan ha noqoto dhibaatooyinka carruurta iyo burburka reeraha soo gaadhay ha noqoto cuqdada dadka ku dhacday ee qofkii dhammaa oo iswaayey aan ahayn qofkii uu shalayta ahaa aan maanta ahayn ama miisaankii uu hore isu saaray aan lahayn laakiin kooxdan dhibta haysata iyagu waxay tahay dhibaatada way ka sheekeeyaan waanay ka warramaan waana baroor diiqaan laakiin wax camala ama wax horu socoda oo ay muujinayaan ma jiro natiijaduna waxay ku muuqataa inay si fudud u sii limanayaan ama ay hoos u sii socdaan haba yaraate ee wax cusub oo isbeddelo ay arkaana aanu jirin waxay ku nool yihiinna inay tahay inay rabbi baryaan ama yididiilo qabaanuuna allah wax bedeli doona inay sugaan kooxda saddexaad waxaan ku tilmaami karnaa iyagu waa koox yar
oo iyagu nolosha galbeedka taala sideeda ugu qancay oo inuu isdhiibo diyaaru noqday iyagu waa dad yar oo aan tiro badnayn ama si aan badnayn waxaynu isweydiinaynaa markaa maxaa xal loo arkaa sidee baa loo badbaadi karaa haddii kooxaheennii dadku uu noocan yahay maxaa xal ah ama maxaa keenaya inaynu badbaadno oo hinta tirada badan leh iyo ceebta sheegsheegeeda iyo ka warankeedu wax badan ma bedelo dadka dabadda ku noole waxyaabay ku caanbaxeen waxaa ka mid a meel kasta isugu yimaadaan dabad iyo gudaba waxay ka warramaan wixii dhib soo gaadhay iyo wixii carruur ka luntay iyo wixii reera ka burburay iyo wixii dad la waayey iyo wixii nin weyn dib u carruuroobay laakiin kama warramaan inta badan maxaa xal ah ama see looga badbaadi karaa ama see looga guuri karaa arrinta tan waxaan odhan karnaa waa ilmihii carruurta ahaa ee markuu tamarta waayo oohinta miciinka bidi jiray ilmuhu intuu wax iska dhicin karo ma ooyo laakiin marka uu istislaamka gaadho inuu isdhiibo wakhtiga uu gaadho waxaa tala kaga soo ururtaa inuu ooyo waxaynu u baahanay marka ummad kasta oo waddan ay ku cusubtay timaada ugu horreyn waddannada la yimi waa waddanno dowlada leh qaanuun leh dhaqan leh qaab nololeed leh qaab u dhisnaa waxa ay soo gallay dadka Soomaaliyeed iyagoo soconaya oo aan waxba wadan ama waxba ku talagelin sideedabana waxa la yiraahdaa ummaduhu haddii ummad meel degan ummad kale ay u timaado ama xadaarado ilbaxnimo kala gadisan haddii ay kulanto natiijada ka soo baxda iyo qaabka dadku uu la dhaqmaa saddex mid buu noqdaa kooxda laga xoog badan yahay iyagu markaasi dadka soo darriyay dhulka kan yimi oo ah kooxda tirada yar leh oo ah kooxda aanu saacidaynin qaanuunka waddanka ka jira ama dowladnimada meesha ka jirta ama dhaqanka meesha ka jira ama qaab nololeedka meesha ka jira kooxda koowaad waxay gashaayeen yari xabsi infiraadiya waxaynu ku tilmaami karno inuu naftiisa xidho inuu isku dayo wax walba may inuu kaga jawaabo inuu u arko uun inta yara aad haysato iyay kaa lumin ama dhaqana ama af ah ama dadnimo ah dabeetana jawaabtiisoo dhamme ay noqoto wax walba xataa isagoo aan fahmin bulshada kale waxa ay ka rabto ama waxa lala rabo ama qaabka loola noolaanayo isagoo aan taa wax waqtiyaba ku bixinin inuu wax walba kaga jawaabo may uu diidana wax kasta oo bulshadaasi uu kala qayb geli kari lahaa uu iska diido waxaana xaqiiqa ah may tarbiya ma noqoto kaligeed natiijadu waxay ku gabagabowdaa uun da'daa hore ee weyne wax walba may leh wakhtiga ay gabowdo ama ay dhammaato inay ka dambeeyaan da'an dhaqan iyo fikrad iyo aragti iyo caqiide iyo waxba toona la wadaagin sidaa awgeed kooxdaasi ma guulaysato koox labaadna iyagu waa kooxdaynu nidhi waa munhazimiin ama waa koox jabtay caqliyan bay u jabeen waxaa laga yaabaa inay waddanka yimaadeen arkeen dadkan inay technology sare leeyihiin dhaqaale sare leeyihiin dowladnimo xoog badan leeyihiin waxay u dareemeen markaasi wax kastoo xaggooda ka yimaada inuu cilmi ku salaysan yahayba dhaqanka yaalla akhlaaqda taalla aragtida taalla afkaarta taalla iyagu markaa waxay u arkaanba halkan imaatinkeedu inuu fursad tahay u baahan yahay qofku inuu ka faa'iidaysto oo uga faa'iidaysto wax kastoo la hayo in sideeda loo liqo ama loo qaato waxaan leenahay labada kooxoodba si fudud bay u tirtirmaan jiritaankii dadnimo ay lahaayeenna way lumiyaan waxaanay ka mid noqdaanuun ugu dambayn bulshada meesha degan qaabkay u fakaraysay iyo waxay ahayd haddiiba ay la qabsan karaan qaybta saddexaad ee ka jawaabta mas'alada tani waa qayb isku dayda inay kala saarto maxaa xaqa iyo maxaa baatila waayo qofka muslimkii wuxuu yaqaanaa alxaqu axaqu an yutabac xaqu meel kastaba ha ka yimaadeen in la qaato ayuu mudan yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay shaytaankii ama jinkii wuxuu sheegay abu hurayre
habeenkii intuu xado xadiiskii bukhaariga ku yaalay markii u dambeysay yidhi iska kaysiidaa cilmaan ku barayaaye wuxuu sheegay suuradda ama aayad kursiga inuu akhristo oo waxaasi oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala shayaadiintaasi uu ka celinayo dabeetana subaxii markuu nebiga u yimi nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sadaqaka wa huwa kaduub markan run buu kuu sheegay isagoo beenaalo ah taa macnaheed waxay tilmaamaysaa xaqu walow shaydaankuna ha sheegee xaqu in la qaato inuu mudan yihi gaal baa yidhi shaydaan baa yidhi cid kalaa tidhi maaha xaqu waa xaq wanaaggu waa wanaag samuhu waa samo waxtarku waa waxtar wuxuu mudan yahay in la qaato ciddii doontaba ha ka timaadee laakiin qofku goormuu xaq iyo baatilka kala garan karaa goormuu miisaan yeelan karaa waa goortuu aqoon yeesho waa goorta uu fahmi karo ummadda kale uu la dhaqan yahay waxa ay hayso waa goorta uu yeelan karo maynu leenahay shaandhamiir ama masaftii wax ku kala haadin lahaa yacnii gabadha soomaaliyeed ee ama hadhuurka tumatay ama gallayda tuntay marka ay rabto inta iyada markaa anfacaysa iyo inta kale inay kala saartaa waxay isticmaashaa masaf dabeetana waxay haadisaa ama se huftaa wixii aanu cuntamin markaasi aanay rabin inay qaadato dadka kani markaasi waa dad u baahan inay yeeshaan shaandhamiir ama masaftii wax lagu hufi lahaa si uu kala hufi karo maxaa hagaagsan maxaan si hagaagsanayn goormuu hufniinkani dhici karaa wuxuu dhici karaa markay ummaddaasi haysato caqiido ay rumaysan yihiin waan odhan karno waa caqiido markaasi ilaa gomadda hoose degan waxay dhici kartaa markay ummaddaasi leeyihiin af maguuraan ah oo dhaqan iyo hiddahooda sida oo ay ilaaliyaan ummaddu hadduu afku ka lumo dhaqankeeduna wuu la lumaa waa marka ay hesho af maguuraana oo ay ilaaliso waa marka ay hesho waxay wax ku miisaanto oo waxa san iyo waxa xun ku kala qaadato waa marka ay daraasayn karto waxa ka hor yimaada qaabka ay ula dhaqmi kari lahayd waxa uu yahay taasi macnaheedu waxa weeyaan waa marka la helo tafaahum aad ummadda kale waxay wado garan karto oo waxa sanna aad qaadan karto waxa xunna aad ka tegi karto waa markuu qofku mar qura wada odhan karo haa iyo maya dhaqamada dadka kale ka yimi wixii san haa uu odhan karo wixii xunna may uu odhan karo waxaase isweydiinta le markaa wuxuu yihi sidee bay u dhici kartaa bulsho soo guurtay oo raran oo dad dhisan oo nidaamsan u yimi inay nolol la wadaagi karaan dadkii galbeedka yimee soomaaliyeed kama gedisna baynu leenahay dadkaasi taariikhdu ka waranto ee bulsho kasta oo hijroota ama laajinnimo noqota ama qurba joog noqoto waddankeedii ka tagaa saddexdan kooxoodba way ka soo baxaan koox qura ayaa jiritaankeedu suurtagal yahay baynu leenahay waa kooxda fahamta waxaynu u baahanay waxaynu leenahay marka dhulkan la yimi wuxuu ina dareensiinayaa dhowr shay inaynu si fiican u fahamno kow inaynu garanno bulsho ka soo dul dhacday ummad dhisan inaynu nahay laba waxaynu nimi innagoo aan ummad organized ahayn ama ummad isku xidhan aan ahayn ee ummad isdishay oo kala laalaada oo kala luntay innagoo ah waxaynu nimi dhul ama wadanno nudumka dimuqraadigaa leh oo taa macnaheedu yahay furas baa yaalla haddii dadku uu ka faa'iidaysan karo oo uu isagu yahay cid u doodi karta ama ilaashan karta furaskaasi waxaynu nimi wadanno aynu nahay minority group ama dadka laga tiro badan yahay isla markaasi soomaalidu ay gaar ku sii tahay inaanay lahayn dowlad u dhisan oo ka daba timaada inaanay lahayn safaarado u dhisan oo wadannadaasi u sii jooga inaanay lahayn maalqabeenno ama aqoon-yahano ka soo horreeyey oo sida ummadaha qaarkood wadannadaasi degaan ku ahaa waxaa intaa inoo raacda
iyadoo aanay ummadda Soomaaliyeed lahayn tajribo hore oo nooca kana marka aan leeyahay tajribo hore oo nooca kana مثلا ummadaha jira wadankoodii markay ku noolaayeen loolanka xadaariga uu wadankooda gudihiisa ka jiray مثلا ninka muslimka ee Indiya ka yimi wuxuu ka yimi wadan kala diima ah oo kala afafa oo kala dhaqana oo kala midaba oo wax badan kala gedisan wuxuu halganka nololeed ku jiray isagoo wadankiisii jooga laakiin ninka Soomaaliga markuu yimi halka kan wuxuu yimi isagoo aan bislayn isagoo aan waligiiba arag caqiidadiisa ka gedisan isagoo aan waligii arag dhaqankiisa ka gedisan isagoo aan haba yaraatee wax tajribo ah ha badnaata hase yaraatee aan wadanin buu soo degay natiijadu waxay tahay markaas dadka Soomaaliyeed ee galbeedka yimi haddii aanay dadaal muujin iyo dadkan sidii loo badbaadin lahaa gaar ahaan dadka aqoon-yahanka u ahi waa dad meel madow ku sii socda oo ay fududaan doonto inay diintooda lumiyaan ay fududaan doonto inay dhaqankooda lumiyaan ay fududaan doonto inay afkooda lumiyaan ay fududaan doonto inay noqdaan markaasi dad ummadda Soomaaliyeed la wadaaga hadday ugu badato midabka iyo qaabka laakiin aan la wadaagin wax kale oo badan su'aasha markaa isweydiinta leh waxay tahay haddii aan inta hordhac ka dhigo sidee loo badbaadin karaa ummadatan markaynu maxay samayno ayay badbaadadaasi iman kartaa waa arrin u baahan dadka aqoon-yahanka ee Soomaaliyeed ee dabadda jooga inay in badan isweydiiyaan waa su'aal u baahan meelahay Soomaalidu isugu timaado in badan lagu soo celceliyo waa su'aal u baahan in badan dadka wax baadha ama aqoon-yahanka ay waqti ku bixiyaan inay baadhaan oo ay isku dayi karaan bal in xuluul la raadin karo ninka Soomaaliyeed ee isagu ku qanacsan inuu guuro oo wadankiisa ku noqdo iyada muran kama taagna gurigaagii meel ka qurux badan la inaad helaynin kaas kama hadlayno laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan ninka Soomaaliyeed ee soo hadhay ee wadankan jooga ee raba inuu badbaado see loo badbaadin karaya wax xali ma jiraan waxaan isku dayi doonaa markaas inaan soo bandhigo siyaabaha ay aniga ila muuqato waqtiyada soo socda